warka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal sababay dhimasho dhaawac u dhaxeeya ciidamada xoogga ee Al-Shabaab oo ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Deegaan la yiraahdo Gambirlaawe oo ka tirsan magaalada Beledweyne oo 5 kiiloomitir u jira dhanka koonfureed ayaa waxaa la sheegay in dagaal saacado badan qaatay uu ku dhexmaray ciidamada xoogga iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. wararka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkaas uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac. inta la xaqiijiyay hal askari oo ka tirsan ciidanka ayaa ku dhintay, waxaana sidoo kale la sheegay in 3 kale ay ku dhaawacmeen, iyadoona intaa kadib ciidanka xoog oo halkaas isku sii fidiyeen, iyadoona haatan ay ku sugan yihiin deegaankaas ciidamada xoogga. saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa keenan u sheegay in dagaalku uu muddo saacado uu socday isla markaana khasaare badan ay gaarsiiyeen sida ay hadalku dhigeen dagaalamayaasha Al-Shabaab.